بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمة الصوماليات وحن بدنكم سلام يا سلامة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان أنا بدنك قصيبين نقطة. رمضان مبارك. إلهي كو صونك يا صلاتك أقبله. الله ينقدركم أنك نار تلقى حرين يا ربي ينقدرك. وحن دنيا aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay Ramadaan tahay aanan rabin kiiskan inaan ka hadlo sideedaba disgusting ah ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil Ramadaan waa bishii cibaadada bil buuqa ma aha bil iscaaya ma aha bil isfadeexadeeya ma aha bil iska been sheega ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareega ma aha waa bishii Ilaahay gacmaha la horsanayay jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaari doonin anigoo taas anigoo ogni qaar badan ee dambaabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo kiiskan ka hadlo magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaama waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaan ay gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi lahayn waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo sidoo rabbi igu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay Ramadaan tahay halka waxaan u soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan Ilaahay sidoo ogyahay inaan u hadlo waan soomanahay waa Ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yiri qofka hore ha ka taageerin waxa laga yaabaa kii ka soo dhiijiyay inuu isna soo dilay kiiskan haddaan idhaahdo haduu dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodeyno waa long story aad bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo been jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga haynad kala rogataan hal lagu soo jawaabo hadna intan tiri haddana inta ayna iga hayn sidii Allaygu ogyahay side-kayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi sidoo igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta Soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga image-kaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca lagu maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta Ramadaan weeyaan Soomaalida la hortago maxay oo been ka gad Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idin la hor imaado iiga tagin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda Ilaahay laga magan galaba iyo kulmaan haddaaban maanta been idin la soo hor fadhiisto oo isiraahdo maanta Soomaali been ka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego oo wiilka Islaameed carabkiisa qalloociyo oo waxuuna odhanin wuu yiri aan idhaahdana Ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu argan Ilaahay uu soo rogo carabku hay qalalo haddaan wiilka carabkiisa qalloociyo idinkuna aamiinta igu soo hufaa taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u falxun tahay aad bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko Soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad gurubiye ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex way u kala jabeen qolatus ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninka raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii riwaayadiis ay hablayo hadmad guurso doontaan akuuku qaybtiisi markay tusma hadashana tusma runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii way oo saas ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay ka soo bilaabantay ka soo bilow ilaa ay habeen dambe idii halka fadhiyeysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan kaliya ayaan soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan exactly wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay kasoo bilaabo istab idraahdaad maanta aad idinla wadaagtid igu wallaahi oo bilaahi oo tallahay 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyn ee media dhex cararaya ee idinkuna ku dambaabteen kaliyaata inaan inta xoog saaro maanta haday noqoto in laga hadlo oo ilaa iyo dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waan filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon ku soo toosay maaha weligeys maan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday waxay kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sannadood ayay kaa wen yihiin everything adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq darraba marka waa inaan taas aamino haddaan isiraahdo staan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan aan u socday sanbuu yerisan baan erisan waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad waakhira seegtaan kow waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationshipka noqday ayaan doonayaa inaan anigu sidekayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan ku dhaha tiimaysan wax ayuu horta waxani ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahayaan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur beljir nin la yidhaahda ay soo qaban ilmo usoo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu la yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanayn qaadiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay un baan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaaba ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kalun buu ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayoo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay banaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alla meeluu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayoo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alla ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unba arrintiisa ogaa kiiskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay mar haddaan sideedii aayado quraani soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay helinay oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kiiskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said unsolved kaasuna ku dhamaanaya ilaa da isagu uu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsano oonaan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin ismaan lahayn dee this is gonna happen because weligay iyo waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kumay jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynayay bay ahayd guurka taas baan idinku odhanaya
tan la leeyahay way sinaysatay oo way maxayso ilaahay ku gaftayna waan u soo socdaa. muddo sanad iyo waxoogaa ah kow anu waxaan ahaa qof cilaaj ah, waxaan ahaa qof xanuunsan, waxaan ahaa qof qalbiga ka xanuunsan, waxaan ahaa qof emotionally iyo physically bajiran. intaa dhakhtar daba wareegta sariirtuun saaran uun yuusaysa. sidaan horeyba idinku sheegay ilaahay wuxuu ogyahay oo rabbi ogyahay keli haataan sheegi kara. waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa. wixii mana awaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa og, anigu ma sheegi karo. waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in lai adeegsaday. waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey. waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyey laigala wareegay. waxa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo, haddii aan isleehay kayskan ku adkayso, haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto Soomaali arrinkan qodobkaa ka gad, waxaanan adduunka ilaahay ummadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido. aamiin dhaha. calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo. aamiinta soo dhaha. sheekadan jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo sheekada cabdi wuxuu ka soo shaqeeyay bay ahayd siga ila yimi. he had a plan, laakiin anigu daacad baan ahaa. markii hore oo dhan, bilihii hore oo dhan anigu maan jeclayn. waan la yaabanaaba dee isagaan ka tuuxsan jiroon kula yaabana. maalin maalmaha ka mid isoo wacay. wuxuu yidhi gurigiisu ka guuray. waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay? wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladeeda waxaa soo baxay niman Suudaaniya oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya. amba ha kula joogo amba ha kaa maqnaado. qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan. waxay sameeyaan black magic. madiiday sameeyaan, sixir bay sameeyaan. qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonayso kaaga dhigayaan. oo dabadeetana gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baa nimankooda ku sameeyay. markaa waxaan u baqay naftayda, reerkaygaan uga soo baqay. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku idhi. isagaa ii marag. wuxuu ku adkaystay, wuu iga dhaadhiciyey because of sixir, cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa uga guuray. aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay cabdi. bil kama soo wareegin. bil buuxda maalintaas kama soo wareegin. markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan. ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna 100% maan hubin, laakiin waan iska mina awaali jiray. waxay noqotay wax kasta oo cabdi yiraahdo inaan fuliyo. wax kasta oo yiraahdo samee inaan sameeyo. wax kasta oo yiraahdo keen inaan dhiibo. inaan noqday qof sariirka ururay oo aan xanuunsan oo dhakhtar jooga ama maxaan ku rahdaa kiniin qaadanayo kiniin ku socda oo maalin walbaba appointment leh. iyadoo ay sidaas tahay uu la og yahay meeshuu igu xidhay inankaasi, haddana wuxuu bilaabay inuu masayr
nin iga masiirsan iska keedigo halkan ka baxday internetkaad xidhatay telefoonkaad xidhay yaad la hadlaysay yaa kula hadlayay qofkaad la hadlaysay screenshot iga soo qaad waa ay qofkani ii soo sawir iga soo qaad dagaal iyo buuq aniga waxa igu bilowday cabsi inaan dareemo murug inay geeri igu dhacday oo kale inaan ahaado qof qalbiga ka ooynaya inaan isku ooyo habeen iyo maalin halka ay sartu ka soo qorantay ay masiibaduba ka timi ayaa halkana maalintii dambe way soo wacay wuxuu yiri kitaab quraan soo qaado waan ku dhaarinaya maxaan ku dhaartaa dhaar baad maraysaa waxaan kugu dhaariyo ayaad ku dhaaranaysaa waxaan ku yiri waxaan maqlay meesha lagu dhaarto geed kama soo baxo roobna kuma da'o ma gurigeygaan ku dhex dhaartaa wuxuu yiri dhaartaasi waa ta beenta lagu dhaarto haddaad run ku dhaarato waxba noqon maysid haddaad been ku dhaarato laakiin dee waa dabar go-aysaa waayahay haddaan anu dhaarto oon anigu dub iyo diru kala baxo adiguna aad ila gogo-dida kitaab soo qaadaan dee waanu isla dhaaran ana waan dhaaran soo inaan dhaarto qasab ma aha adiguna kusoo qaado waayahay buu yidhi kitaab buu soo qaatay kitaab buu soo qaatay wuxuu yiri kow igu dhaaro inaad jeceshahay laba ku dhaaro meeshan joogo inaad imanayso saddex ku dhaaro inaanad noloshaada nin la hadlay ama saddexdaas baa ahaa waa haystaa ba iisii saddexdaasi saddexdii baan ku dhiftay kitaabkii quraanka baan gacanta saaray